بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله على نعمة الإسلام. قال تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. نعمة إلهي وحدة ترينك وأمل سوكو بكرماء وهدي وحوي عن كل دقائق ومغنسا نرشي وحول وحوي ونعمة إلهي وحوي أسبق عليكم نعمه ظاهرة وباطنة قرئي وغصب من موقتي من مغبى وأفضل النعمة وأجلها الهداية إلى الإسلام. نعمة قوي ومغنسا حيثنا ونعمة الإسلام وحوي نعمة وحاءه inaan helay dad magaranaysa wax ilaahay noo saxiray magaranaysa oo ah warasatul anbiyaa oo mar walbaba na xusuusinaysa ilaahay na xusuusin dikriga ilaahay iyo ilaahay magaranaysa na xusuusinaysa inaan haysano. taas ayaa masalanba iyadoo nicmo aada iyo aada u weyna oo aan la heli karin oon dadku wada haysan. marka nicmadaas ayaan ilaahay ugu shukrinaynaa. marka waxaan nala jooga sheekh ismaaciil oo sheekh mustafa حاجي إسماعيل وقد قرنيسان واحد كذا يقطون اللي يراهل تعريفيه واللي يراهل واسدا ننقص التلفون كيس كجيل نمجره نما نقول نمجره وقت مضى الإسلام فردم وقد حيا ومعها المسلم من جروب إنذا رأسا جروب كاكري أحد لمعها ومضى ورن مالي يكتبه وحاول يقف أو من إذا بصعدان أو أي كذب بيان ودعودي سيجعليهن أو أي مغنى والمجعلي هويان. marka waxa weeyaan ilaahay baa noo soo saqiray oo noo keenay oo annagoo aan ogaanaysaa diyaaro u dirin annagoo aan digid u goyn ayaa ilaahay noo keenay. marka waxa weeyaan waa inaan nicmada ilaahay ugu shukrino oo aan idhaahno alxamdulilaahi rabbi alcaalamiin. ilaahay baa nicmada iska leh oo noo islaamka nicmadiisa ayaa wax walba ugu weyn. marka waa sheekh ayaan kusoo dhaweynayaa, ma doonaya inaan uga bardoodiyo uga tunto magaranaysaa dacwada iyo magaranaysaa khayrka uu noo wado. جزاه الله خيرا. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أيها الأحبة، intiin nala joogin habeen hore waxaynu ka hadalnay alistiqaama, toosnida ama qumanida. caawana waxaan isku dayaynaa inaan wax ka tilmaamno waxyaabaha sababaya ama qofka muslimka ku bixinaya inuu sugmo oo markuu toosnaado aanu dib uga weecweecan ama dib uga soo noqonin. ilaahay qur-aanka wuxuu inagu leeyahy: yaa ayuha aladiina aamanuu itaquu llaha xaqa tuqaatihi walaa tamuutunna ilaa waantum muslimuun. aayaadka khudwadda jimce inta badan laynagu akriyo. war kuwa ilaahay rumeeyay baa rabbi yidhi subxaanahu wa tacaala, alle ka cabsada cabsida u xaq muto oo walaa tamuutunna ilaa waantum muslimuun. ha geeriyoonina idinkoo aan muslim ahayn. garan maysid geeridu wakhtiga imanayso. haddii lagu yidhaahdo ha geeriyoonin adigoon muslim ahayn, macnaheedu waxa weeyaan qumanow mar kastaba, maadaamanaad ogeyn wakti uu wadku kuu imanaya ama malakul mowt wakhtigu kuu imanaya. mar haddaanad garanaynin, waxaa lagu amrayaa inaad jidkaasi ku taagnaatid fii kulli اlaxwaal. nolosha aynu ku noolee adduunkuna waa nolol imtixaan loogu talagalay. sidaa awgeed mucawaqaadku, waxyaabaha qofka bini aadamkaa weecweeciya ama qumanaanta ka weeciya ama iska hortaaga waa tiro badan yihin. laakiin waxaa layna farayaa inaynu waxaasoo dhan caraaqila ka tallaabsan karno, oo aynu ku sugnaano
inaynu si joogtaa ula nimaadno wixii alla ina faray, wixii rabbi inaga reebayna inaynu ka dheeraanno si aynu ugu biirno kuwa ilaahay leeyay in aladiina qaaluu rabbuna allah ثuma اstaqaamuu tatanazlu calayhim اlmalaa'ika anlaa takhaafuu walaa taxzanuu waabshiruu biاljannati alatii kuntum tuucaduun, kuwa alla ku tilmaamay, kuwa yidhi alla noo rabbiya ee weedhaasi waxa ay sheegayso waa contract inaad saxeexdo laa ilaaha ila allah muxamadun rasuulu llah, waa cahdi iyo ballan aad ilaahay la gashay. ballankaa waxbaa ka ratibmaya, ballankaa wixii ka ratibmaya kuwa oofiya baa ilaahay yidhi. malaa'igtu marka nafta laga qabanayo ay ku soo degto waxay u sheegtaa waxa kaa horeeya mustaqbalka ha ka cabsanin, xabaasha iyo waxa ka sii dambeeya ha cabsan, waxaad ka timina ha ka murugoonin. insaanku waa labada dhib ee ugu badane ku dhaca, imaa wax ka tegay inay murugadii iyo tiiraanyadii haysiiyo warwarkii, ama wax soo socda walbahaarkii iyo cabsadii inay ku badan tahay. hana walbahaarin oo hawalwelin ayaa loo tilmaamaya waxa soo socda, ka cabsan. wixii tegayna ha ka murugoonin, waxaanad ku bushaaraysataa baa la leeyahay janno. istiqaamadaasi sidee loo helaa markaasa isweydiinta leh, iyadoo adduunka fitanka iyo imtixaanku ay tiro badan yihiin, iyadoo marar badan laga yaabo qilatu naasir, cid kuu hiilisa ama kuu gargaarta inay yaraato, iyadoo wakhtiyada qaarkood iyo duruufaha qaarkood laga yaabo gurba fi ddiin inaad ku dhacdaba, iyadoo islaamku meeluu qariib ku yahay ama aanu ku xoogganayn ama aan laga soo dhoweyn inaad ku nooshahay, sidee baad u sugmi karaysaa? waxa imtixaan aynu marayno o dhanna nebi maxamed uu maray calayhi salaatu wasalaam. mar buu dunida keligii muslim joogay oo wadan dhan oo gaala u keligii, oo la yidhi dacwadda qaado xambaar. dhul gaaleed uu ku noolaa makoo dhul gaaleeda, waa la tumoo la cidhiidhiyey, raggiisii hortiisaa lagu laayay oo lagu toorjargaraynayay, waa hijroodeen oo ka tageen, waa laga daba tego, waa laga daba duulay. haddana dhowr sannadood baa meeshuu deganaa lagu weerarayay. from zero buu ka soo bilaabay ilaa iyo uu dowlad ka noqday, laga haybaysto oo ay dadku diinta koox koox u soo galaan. waxa bini aadamku uu dhib maroo dhan nebigu uu soo maray calayhi salaatu wasalaam. hadday gaajatay, hadday baqatay, hadday cabsitay, hadday dagaaltay iyo cagsigeedaba, oo ah hadday suldo iyo madaxnimo iyo maamul iyo xoolata, intaba uu soo maray. duruufaadkaa kala gedisan oo dhan wuu maray, isaga iyo saxaabadiisina way sugmeen. kullu haadihi duruuf kamay weecanin diintoodii. maxaa haddaba loo baahan yahay si aynu waddadaynana ugu suganno? waxaa loo baahan yahay kow, kitaabkaa rabbi inaynu ku mintidno. kitaabkaa qur-aanah barashadiisa, akhrintiisa, baristiisa, ku dhaqankiisa, ku tadaburka iyo dhugashadiisa iyo ufiirsigiisa, inaynu kitaabkaasi wuxuu sidaa the solution of the whole life, nolosha oo dhan. aadanaha dunida ku kor nool oo dhan waxa problem haysta, waxaa loogu talagalay inuu kitaabkaasi solution u noqdo, inuu xal u yahay ayi mashkila. waxaad doonto mashkiladda ku sheeg, hadday mashkilo falsafiyatay, hadday mid caqliyatay, hadday mid caqadiyatay, hadday mid sociala tahay, hadday mid family tahay, hadday mid nafsiya tahay. ayi mashkil aadanuhu uu dareemo, ilaahay wuxuu leeyahay xalkiisi baan idin soo diray. saa daraaddeed baa ilaahay qur-aanka wuxuu ku leeyahay qul nazalahu ruuxu lqudusi min rabbika bilxaq liyuthabbita aladiina aamanuu wahudan wabushraa lilmuslimiin. waxaad tidhaahdaa baa ilaahay leeyahay qul nazalahu ruuxu lqudusi min rabbika bilxaq. ruuxu lqudus malkuljibriil ba xagga rabbi ka soo qaaday isagoo xaqa. maxaa loo keenay? liyuthabbita aladiina aamanuu, inuu sugo oo diinta ku sugo kuwa iimaanka laga helay. ayi mashkila ka hor timaado inuu xal u hayo oo uu sugmo, inuu yahay hanuun, hudan, hanuun inuu yahay, if inuu yahay, inuu yahay bushaaro,
khayr loogu sii bushaaraynayo dadka muslimiinta oo dhan. nimankii gaaleed ee nebiga la noolaabaa waxay idhaahdeen qur-aankan hadduu xagga alle ka imanayo ma isagoo kitaaboo kuusan loo keeno, maxaa kolba in yari u soo degaysaa, ma kitaabkoo isku xidhan muu yimaado? su-aalahay xataa keenayaan rabbaa ka jawaabaya. ilahay wuxuu leey waqaala aladiina kafaruu, kuwii gaaloobay waxay yidhaahdeen lowlaa nuzila calayhi lqur'aanu jumlata waaxida, qur-aanka maa lagu soo dejiyo isagoo jumlo ah, isagoo kitaab quroo isku yaalla maa lagu soo dejiyo. ilahay wuxuu yidhi kadalik ay anzalnaahu kadalik, waxaanu u soo dejinnay sidaa uu yahay, isagoo munajama, isagoo qayba baanu soo dejinnay. waayo linuhabbita bihi fu'aadaka waratalnaahu tartiila baa ilahay, si aanu qalbigaaga u sugno ayaanu saa u yeelnay. kitaabka qur-aan 23 sannadood ee nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam risaalada u xambaarsanaa, kolba in baa soo degaysay, laakiin kolba intee soo degaysay, kolba intii mashkiladda markaa joogta xalilaysa. problem kastoo haysta solutionkeeda ilaahay samadu uga keenayo, waxaa la leeyahay saan baad kaga bixi kartaa, sidan yeela, mowqifkaa istaaga, halkaa istaaga. innagana min waraa'i waxaa laynaga rabaa wado kasta oo nebi maxamed istaagay iyo saxaabadiisa calayhim assalaam waradia allahu canhum, waxaa laynooga baahanya inaguna inaynu maxay xalkii alla siiyey aynu xal ka dhigano. dowlad si loo sameeyo xal laga siiyey, bulsho kale nooci siday u wada noolaan lahayd baa xal laga siiyey. nebi maxamed markuu madiine yimi, madiine waxay magaalo dad kale nooci degan yihin, yuhuud baa deganay, mushrikiin baa deganay, muslimiin baa deganay. wasiiqa waaxida, qoraal qulu nebigu u qoro lagu wada noolaan karo oo dadkaa kale nooca ah ay magaalada ku wada deganaan karaan. idan qur-aankani ayi mashkila aadanaha qabsan kartuu xal u yihi. ilaahay markaa wuxuu leeyahy inaanu ku sugno daraaddeed ayaanu uga dhignay qayb inuu u soo dego. waxaa kaloo ilaahay qur-aanka ku tilmaamaya, qur-aanka qisas baa ku jira. qisaskaasi waxay ka waramayaan taariikhda bini aadamkee laga soo bilaabo aadam ilaa iyo cahdigii nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam, wixii qiso macnala jira ee taariikhda bini aadamku wax ka faa'iidayo. ambiya ilaahay kaga waramaya iyo qoomankoodii say ula dhaqmeen. ilaahay wuxuu ka warramaya boqortooyin gaalo ahaa iyo say u dhaqmeen, oo qur-aanku fircoon buu ka warramaya, namruud buu ka warramaya, boqorro gaaleed baa rabbi ka warramaya iyo waxay ku dambeeyeen iyo say dadka u maamuli jireen. waxaa ilaahay ka warramaya boqorro muslimiina, waxaa rabbi ka warramaya nebiyo la laayay, ma nebiyo la dilay ayaa ilaahay qur-aanka kaga warramaya, dadkii loo soo diray ay dileen boo kow ka siiyeen. wax kasta oo qof muslima qabsan kara ayaa ilaahay kaga warramaya. saa daraaddeed baa ilaahay wuxuu leeyahy wakula naqusu calayka min anbaa'i rusuli maa nuhabitu bihi fu'aadak, waxaanu kaaga qisoonaynaa baa ilaahay leeyahy wararkii rususha wax aanu qalbigiina ku dejinayna baa ilaahay leeyahy wajaءaka fi hadihi اlxaqu wamawcida wadikraa lilmu'miniin. idan qisaska qur-aanku uu ka warramaya maalan nebi ibraahim oo la qabtay oo la gubayo, oo ilaahay leeyahy qulnaa yaa naaru kunii barda wasalaama calى ibraahim, dabow qabow nabadgelye le u ahaw. qabowgu waxbuu dilaa isbaa, haddii la yidhaahdo dabow qabow noqo dee berafkuba wuu dili karaa. ilaahay wuxuu leeyahay qabow wax nabadgeliya u noqo. waxaa ilaahay ka warramaya qur-aanka qisas mucjisaadkii ambiyaadka ka dhacay oo ah nebi muuse markii la yidhi hijrooda uu ka soo baxay isagoo ciidankiisii yaraa wata, fircoon iyo ciidamadiisii oo dham inay ka daba yimaadeen oo ay yidhaahdeen waa layna soo gaadhay, waa jabnay. ou leeya kalaa ina maciya rabbi sayahdiin, ma jaban aniga ilaahay baa macayga ah, waana rabbi way hanuunin doonaa. oo ilaahay subxaana wa tacaala ugu jawaabay an idrib bicasaaka albaxr, badda usha ku dhufoo laba looga dhigoo maray. waxaa ilaahay kaga warramayaa koox yar oo xaqa markay aragtay rumaysay oo dowladdan ka hor timi. maalan nebi muuse iyo fircoon markay doodu dhex martay,
akhiiran waxaa lagu heshiiyey waxaagu waa sixir buu yidhi sixiroolayaashan soo ururinaya ee ballan inoo dhig maalin baa lagu ballamay yowmu ziina iyo dadkao dham inuu isu yimaado waxaa laaliya wixii saxara waddanka joogtaa la isugu yeedhay nebi muusena waa loo yeedhay saxaradii waa kuwii sixirka samsameeyey dabeetana nebi muuse ilahay yihi usha dhulka ku dhufo ul buu tuuray ushii mas bay noqotay maskii wixii sixiradu ay sameeyeen oo dhan buu cunay waxa uu horrumeeyey nebi muuse saxaradii markaa oo iyaga marka kan waxay garteen waxaan inuu saxir ahayn nebi muuse qisadan u wadaa inaanay masale sixir ku saabsan ahayn dabeetana ilaahay baa rumeeye fircoon wuu hanjabo wuxuu yihi innahu lakabiirukum aladii callamakum asixr waaba kii idinku weynaya sixirka idin maray kana raacdeen falaw qaطicana aydiyakum waarjulakum min khilaafin walaw sallibanakum fi juduuci الnaql walataclamuna ayuna ashaddu cadaaban waabqa isku tallaab baan idin goyn doonaa buu leeyahy adin iyo gacanba mar baan idin jari cross baan idinku xidhi magaalada dhexdeeda dabeetana waxay idin garan doontaa buu yihi aniga iyo